aad baan idin salaamayaa dhammaantiin dadka youtube-ka ku xiran iyo barayga bulshada maanta halka baan idinka salaamayaa video yar baan duubayaa hadduu eebeedmo waxaan wax ka dhahayaa waxaan arkay dhowr arrimood baan wax ka dhahayaa bal isku daya inaan wax yar ka dhaho videoga dheeraanin baan isku dayayaa waan ogahay inaa ka caajistaan mararka qaar inuu videogu dheer yahay waxaan arkay dad baa waxaa la weydiinayay weydiin iyo warcelin waa su-aal iyo jawaab waxay Soomaalidu maanta dhahdo marka waxaa lagu yiri wiilkaaga waxaa lagu yiri ninka madhalayska wiilka uu dhalo ninka madhalayska wiilka uu dhalo ma ka raaci karaa madhalaysnimada qofkaan ilmaha dhalin yani wiilkiisa nin aan ilmo dhalin oo madhalaysa wiilkiisa ma ka raaci karaa madhalaysnimada marka waxay ku jawaabayeen haa wuu ka raaci karaa xasaasay ku jawaabayeen waxay ku tusinaysaa markii wax lagu weydiiyey haddaadan ka fakerin waxa lagu weydiiyey si waxa uga warcelinaysaa doqonnimo ah isma weydiinin ninka madhalayska ah wiilkiisa hadda wiil baa sheegaysaa hadduu wiil dhalay madhalays ma ahan qofkaan madhalays ma ahan hadduu wiil dhalay so waa saasay noqonaysaa intii oran lahaayeen markaa oo wiil sidee madhalays hadduu yahay sidee wiil u dhalay bay waxay leeyihiin wuu ka raaci karaa dhakhtar haddii loo fiiriyo xagga caafimaadka balaa wax noocaasay leeyihiin moogtaa marka taa waa taa oo dadka waxaa arkay mararka qaar waxyaabo la weydiinayo waxa la weydiiyo kama fiirsadaan si yaroo doqonnimo ah bay uga jawaabaan waxayna ku tusinaysaa sababtasna waxaa keenaysa dadka markay yaryaraayeen lama weydiiyo waxbaa loo sheegaa waa loo sheegaa bis waxaan lagu qasbaa inay qaataan waa weel wax lagu shuba bay dadkii noqdeen dadku ma doodaan wax isma weydiiyaan dhinacyada kama fiiriyaan hadalka ma wada wadaan hal abuur ma sameeyaan saasay tahay way ahaatay saas bay tahay way ahaatay saas bay tahay saasaa lagu celceliyaa suu qofku saas u dhahayaa hadduu qaadan waayo waxa uu qofka kaa weyn uu kuu sheego marka aa yar tahay macallinkaaga ama waaridkaaga waa lagu garaacayaa joos kale meesha ma jiro waddanka markaad soo kortidna haddaad yaraa dadka ka aragtid wanaatid oo wax kale isweydiisidna cay iyo qaylo iyo dagaal bay dadka kala hor yimaadaan moogtiin marka waa wax u baahan in bulshada dhinaca wax laga bedelo oo la baro caruurtu inay doodaan inay wax isweydiiyaan in su-aal loo dhiibo su-aasha iyo ama weydiin loo dhiibo inay markaas ka wada doodaan middo meel u ka fiiriyo middo meel ka istaago oo maskaxda laga shaqaysiiyo moogtahay saasaa dadku ay ku kortaa caqligooda iyo garaadkooda wuxuu ku koraa inay dadku wax abuur ay sameyni karaan taa waa taa nin waxaan arkay kale isaguna oo wuxuu leeyahay video hadda ma daari karo markaa yaraa lahaada ma haysto mobile kale marka wuxuu leeyahay gabadha qofta dumarka ah markay dhimato oo meydka ay tahay waa la qariyaa maro weyn baa lagu aasaa waa laga fogaadaa qaabka loo aaso buu ka sheekeynaya marka wuxuu yidhi gabadhii dhimatay ee meydka ahayd ee la xabaalayay si weyn baa loo qariyaa adigoo nool baana dadka istusaysaa oo jirkaaga banaynaysaa hadalkaas buu ninku yidhi hadalkaasaa marka wax ka dhahayaa waa inaan idiin sheegaa hadalkuu yidhi sidan wax uga dhahayo horta walaalkaya waxaa weeye ama dadka dhegeysan doona dhammaantoodba qof dhintay iyo qof nool tusaale loo soo wada qaadan karo qofka nool marka qofku uu nool yahay anigu markaan noolahay go-aamadayda anaa iska leh go-aan baan leeyahay caqli baan leeyahay garaad baan leeyahay doorashaan leeyahay wax inaan diidaan leeyahay waxaasoo dhan baan leeyahay qof garaad leh qof waxaan ahay wax dooran karo qof nool baan ahay ilaahay wuxuu igeliyay naf markaa wax doorashaan leeyahay qaabka anigu markaa dharka u xiranayo anaa nool go-aanka anaa ka qaadanaya say tahay markaad dhinto qofku markuu dhinto go-aanka dad kalaa gaara meesha lagu aasayo sida loo aasayo dadka janaasadiis ka qayb qaadanaya xilliga xabaasha la geynayo dadka nool baa ka qayb go-aan ma lihid
qof hadlaya ma tihid iga durug iyo idaa midna qofku ma oranayo sidee marka gabar dhimatay gabar nool tusaale uga soo qaadan kartaa marka caqliga iyo garaadka wuxuu ku geeyay waxaad doonaysaa si qofka dhinta aad ugu go'aamisid marada u xiraysid iyo meeshaad gelinaysid iyo inaad ka durkaysid inaad tan nool oo socotana u go'aamisid alla raggu maxay yaab iyo amakaag leeyihiin alla nimanku intay xuduudkooda dhaafeen oo dharkooda ka dhex baxeen bay waxay haabanayaan meel aan adduunna ka tagay aakhirana ma gaarin meel yaab labay dul socdaan nimankii qaarkood ninka hadalka dhan wuxuu u mareeyay qof baa la duuduubay qof nool buu wuxuu rabaa inuu duuduubo asagu siduu wanaag u yaqaan oo ka dhigo sidaa wanaag u taqaanid wanaag ma aha kaliya sidaa quruxda u taqaanidna quruxdu ma aha inaad anigu saan dharka u xirtaa u aragtid foolxumo in naar lagu geliyo waa wax cajiib ah war haddaan anigu dembigaan galo anigu ilaahay igala xisaabtamaya adiga ma ahan mid lagu xisaabinayo ma aha mid wax lagaa weydiinayo ma aha mid inta miis lagu soo fariisiyo lagu dhahayo war maxay gabadhaan waxaa u samaysa ma ahan qofku markuu weynaado dembigu eeba ka galo asagaa la weydiiyaa geerida ka bacdi markuu nool yahana dembigu dadka ka galo adiga laguma haystee waxaa la weydiiyaa isla asaga dadka qofkaasi ciqaabaan haddaad dembiilo tahay maxkamaddu aday su-aalo ku weydiinaysa iyo booliisku lama weydiinaya ninka naag baa tahaye nimankou kaalaya heblaayo dembigeeda ka jawaaba kuma dhahayaan dadka dunida jooga geeridu markay imaatana eebbaweyne intuu kusoo horfadhiisay kuma dhahayo dumarka maxaad u xirxiri weysa sida kuwa dhintay oo u duubi weysa dumarku dharkay gashanayaan iyo go-aamadooda xaq bay u leeyihiin ayaga say quruxda u yaqaanaan bay u xiranayaan arrintan ma dembi baa ka imaanaya mise kama imaanaya waxaa dee ilaahay baa kala xisaabtamaya booskaaga ma bannaana adiga halkaa hayse soo gelinin arrimo kala oo yaalla intaad haweenka aad ku mashquulsantihiin sidaa u duubi laheedeen sida qof dhintay kuwa nooloo yaalla maxaa la dhahaa telegramka oo rag kaloo soomaaliya intay qaawiyeen ayagoo guskooda gelinaya ay kaamirada kasoo duubaan oo ay baraha bulshada yaallaan oo ay sii faafiyaan kuwaasa waxay u baahan yihiin bulshada intay iskaga imaatay in la dhaho war qofka waxaan samaynaya see wax looga qabtaa loola xisaabtamaa dumarkii qarintii kuwa aad qariseenna sida meydkii adinkaa qaawiyey mar kale adinkaa intaa qaawiyeen oo candhadiina ka duway kaamiro ka daba wato iyadoo qaawan baan bay noogu imaataa mobeelkan haysana dhexdooda moogtahay markaa adigu qaawi sidoo aad fuulaysid ma sadaqa oo meelaha ay wareegayso ma wax caadiyo in la arko la fiirsado bannaanba yaa haddii ayadu iskeed ay dhar u xiratana ma dembiba ma naagtii dhimatay baa lala soo qaadayaa waraxaas caqli iyo garaad iyo aragti midna ma ahane 32 sana nin doqon wuxuu kugu hayay naagtu waa inay saa samaysaa naaguhu waa naaga waaweyn waxay doonaan bay samaynayaan oo la quman oo bulshada u keenaynin dhibaato saan anigu ahay bulshada dhibaato uma keenayso adigu laakiin wax badan oo haddaad niman tihiin bulshada dhibaato ku haysabaad ku guda jirtaan fahmaysaan galma xaaraan aad faafisaan dumarkaa qaawisaan bulshada dhibaato ku haysaa qof baa dhawac gaarsiinaysaan adinkaa dhexdiina isdisha qabiil baad ku faantaan corruption baad wadaan wax badan oo u baahantihiin hoos isku fiirsaan haddii diin tahay haddii dhaqan tahay oo iska saxdaan baa loo baahan yahay indhahan dumarka kusoo callaqmay dharkay xiranayaan waa indho u baahan inay meelo kale eegaan caqligan garaadkan kusoo dhammaaday qofta dumarka ah kastuumaday xiranaysa ma buluug bay noqon doontaa mise madow bay noqon doontaa wax ka duwan bay bulshadu inay ka hadasho u baahan tahay runtii waa arrin u baahan in laga gudbo oo garaadka dadka uu koro oo halkaa uu dhaafo moogtahay intaasaan halkaa uga gudbayaa nimanka ah yar waxaa jira aadan anu malin tiktok inuu kusoo galo
iyar baan kaga hadlayaa laakiin mar kale aan ka hadli doonaa mawduuciisa aan guda geli doonaa qayb ka soo qaadan doonaa siduu u hadlay hal qodob uu ka hadlay baan wax ka dhahayaa fiidiyoashiisa qayb ka mid a qofkaan dhegeysan asagaas ka dhegeysan doono aadan hadduu fiidiyogan soo gaaray marka koowaad waan salaamayaa marka labaadna aragtidiisa qaybtaan u arko inuu qaybta siduu u dhigay aan si ka duwan baan u arkaa anigu tusaale ahaan markuu dhahayay haddaan ragnahay wuxuu yidhi annaga emotionka baa waa lagala dagaalamay nimanka oo inay cabtaan inay maaragtay ma ahan runtii waa run raggu inay ooyaan iyo waxaa waa dhaqan loo diido oo waa dhaqan jir ah dhaqankaas dhaqan ay dumarku sameeyeen ma ahan dhaqanka Soomaaliya yaalla waa dhaqanka bulsho rageed ay sameeyeen raggu iyo dumarku raalli iskaga yihiin waa dhaqan labkana u daran dhadigana u daran caruurtana u daran noolaha oo dhan oo nuxsan uu daran yahay dhaqanka qayb badan baa waxa u baahan in laga saaro oo laga sooco oo laga nadiifiyo kaasaana ka mid ah laakiin waxaa ka dhigtay in loo raxmado gabdhaha oo gabdhaha waxaa tiri raggu way istagaalaan banaanka u baxaan dumarku way istagaalaan ma aha inay istagaalaan markii caruurta la ahaa oo raggu ay isdilaan oo ninka iska soo la dhaho gabdhuhuna way istagaalaan sakiin bay wajiga iskaga bedelaan way iscidiyeystaan suxun bay isku dagaalaan haddii aad gabar iska soo celin guriga naa dhoocish iska soo celi ma cunaysid baa la leeyahay dhaqanka ah qofka iska soo celi hooyooyinka ilmaha isku diraan gabdhaha iyo wiilashu way ka sinaayeen ma ahan gabadhu intay qof la soo dagaasho ama laga soo adkaado in loo raxmadayo taa may dhici jirin taa ma dhaco soo xagga waxaa moodaa inaad iska indhasaaftay oo aad ka been sheegtay oo aad leedahay dumarku waxaa kuma dhacaan dhanka kale waxaa tiri annagu maba nihin dad naxariis camal leh oo marka hore nalama soo dhihina naxariista waxaad ka dhigtay niman sekubaad inaad tihiin baad ragga u hadlaysaa moogtahay naxariista haddii bulshadu ayna naxariis lahayn dumarka ma usoo naxariisteen gabdhaha miyaa loo naxariistay dumarku xaggee bay naxariista ka keenay mid waxyiyo kusoo degtay oo ilaahay siiyeyba oo raggana muu ka qaaday ilaa dhaqankan jiro oo naxariis darrada oo wiilka keliya laguma hayn gabadha hadday xanuunsato naa maxaad la sheeganaysaa naa maxaad caanyaa tahay naa orodoo kac naa orodoo qabo naa orodoo yeel naa gabdhuhu ma xanuunsadaan naa soco naa ha cabanin naa waxee suti la oran jiray haddaadan shaqayn oo maanta dhan socon oo maanta dhan ayna gabadhu rafan suti loo yaqaanay wax iska maarta daciifa hiblaayo gabadheedaa socota hiblaayo gabadheeda waxaan bay qabataa dumarka suti la tartansiin jiray sida inay koox ka tirsan yihiin oo la howlgelin jiray goormay naxariis gooniyo dumarka loo hayay gabdhaha marka ma aqan dhanka aad ka fiirisay waa dhan yaable markaa runtii anigu waan la yaabay dhinaca ka fiirisay fiidiyoyaashaada mar kale baan ka hadli doonaa arrinta galmada oo raggu ay ugu yeeraan gabdhuhu ay ninka ugu yeeraan biriq baa yaro dhibsatay waxbaana ka tiri xaq baana u lahayd inaad wax ka tiraahdid qaabka anigu u arkana waxbaan ka dhihi doonaa haddii ilaahay idmo waan idin salaamaya dadka youtube-kayga ku xiran waanigoo ka hadhiina meesha ay kala socotaana googooska waxyaabihii aan arkay baan waxyar ka dhahayay youtube-ka ayaamaha ma soo gelin si aan iskula soconno waan jeclaa inaan youtube-ka fiyaal soo geliyo laakiin waan ka mashquulaa waana shaqaystaa oo waxaan qof shaqaalo ah oo hooyo ah soo yara igu adkaataa waana ka caajisaa inaan been sheega maaha markaan fasax ahay waan yara ka caajisaa inaan youtube wax soo geliyo waa mahadsantihiin dadka youtube-kayga ku xiran waan isku dayi doonaa inuu caajiska iga baxo oon wax soo dhigo aad baa u mahadsantihiin waan salaamaya